ninbaa wuxuu ku dhaartay inuusan guursan ilaa 100 nin ay la taliyaan oo horay u soo guursaday. Waxaa la taliyey 99 nin. Waxa u haray hal nin keliya. Wuxuu go'aansaday inuu ku soo qatimo qofka ugu horeeya ee uu beri la kulmo. Maalintii xigta wuxuu la kulmay nin waalan oo faras saaran. Ninkii waalna ayaa ku yidhi, ka baydh faraska yaanu ku jiirine. Ninkii baa ku yidhi, jooji faraska si aan kuu weydiiyo su'aal. Wuu joojiyey. Wuxuu ku yidhi, niyow balan ayaan ku qaaday inaan la tashado 100 nin, adna waxaa tahay kii dhammaystirayay. Waxaanan go'aansaday inaan ku gebagabeeyo qofka ugu horeeya ee iga soo horbaxa, adigaana iga soo horbaxay, ee niyow waan guursan rabaaye ila tali. Ninkii waalna wuxuu ugu jawaabay, dumarku waa 3, mid adaa leh, midna ma lihid, midna ma lihid lamana lahaa. Kadib ayuu yidhi iska eeg faraska, wuuna dhaqaajiyey. Ninkii ayaa isweydiiyey muxuu ula jeeday. Wuu ka daba tegey ninkii waalnaa, wuxuuna ku yidhi, maxaad uga jeeday oo ii kala sheeg 3daas waxay kala yihiin. Wuxuu yidhi ninkii waalnaa, tan koowaad waa gabadha bikrada ah, qalbigeeda iyo jaceylkeedaba adigay ku siinaysaa, oo may arag nin kale. Haddaba haddii aad wanaajiso, waxay odhanaysaa raggoo dhan waa sidan. Haddii aad xumaysana, waxay odhanaysaa raggoo dhan waa sidan. Tan labaad waa gabadha carmalka ama garoobta ah, ilmahana wadataa. Waxbay kaa qaadi, wiilkeedana way siinaysaa, maalkaagana way qaadanaysaa, ninkii horena way u barooranaysaa. Tan saddexaad waa carmalka aan wadan ilmo. Haddii aad wanaajiso, waxay odhanaysaa, kanaa ka khayr badan kii hore. Haddii aad xumaysana, waxay odhanaysaa, kanaa ka xun kii hore. Haddaba haddii aad wanaag u samaysa, adaa hananaya, haddii kalena maya. Ninkii waalnaa wuu iska tegey. Ninkii ayaa ka daba dhaqaaqay, wuxuuna ku yidhi, waxaad ku hadashay hadalkii xakiimka, waxaana u dhaqmaysaa sida dadka waalan. Wuxuu ugu jawaabay ninkii waalnaa, war tolkaygaa rabay inay iga dhigaan qaadi ama garsoore, laakiin anigaa ka diiday. Way igu celceliyeen, waxaana iska dhigay nin waalan si aan uga badbaado. Haddaba saaxiibayaal, waxaan filayaa inaad sheekadan xigmadda leh ka bogateen. Aragtidaada hoos inoogu reeb. Halkan kala soc mar walba sheekooyin xigmad, murti, qosol intaba isugu jira. Muuqaalkanna si ay asxaabta kale uga faa'iidaystaan, inoo sheer gareeya.